Siyaad Barre wuxuu dhashay sanadkii 1919 wuxuuna ku dhashay gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya, wuxuuna ku soo barbaaray deegaan dhaqameed. Kadibna wuxuu galay ciidankii Soomaaliya oo markaas hoos tagayay Talyaaniga. Wuxuu helay tababar ciidan oo heer sare ah, gaar ahaan Midowga Sofiyeetka iyo Talyaaniga. Xukunka militariga bishii Oktoobar 1969, kadib markii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake la dilay, Siyaad Barre wuxuu hoggaanka u qabtay afgembi militari oo aan dhiig badan ku daadan. Wuxuu noqday madaxweynihii Soomaaliyeed ilaa sanadkii 1991 isagoo hogaaminayay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku dhaqmi jirtay siyaasad midaysan. Hogaaminta Siyaad Barre markii laga hadlo, Siyaad Barre wuxuu sameeyay isbeddel weyn oo dhanka dhaqaalaha, waxbarashada iyo militariga. Wuxuu hirgeliyay barnaamijyada ololaha akhriska iyo waxbarashada, taasoo kor u qaaday heerka aqoonta dalka. Siyaad Barre wuxuu xoojiyay xiriirka Soomaaliya iyo Midowga Sofiyeetka, kadibna wuxuu la jeestay Mareykanka kadibna dagaalkii Ogaadeen 1977 ilaa 1978. Siyaad Barre wuxuu hogaamiyay Soomaaliya dagaalkii Ogaadeen ee lagu doonayay in lagu qabsado dhulkii Itoobiya ee Soomaalida degneed. Dagaalkaas ayaa fashilmay kadib markii Itoobiya ay taageero ka heshay Midowga Sofiyeetka iyo Kuuba. Markii laga hadlo dhibaatada siyaasadeed iyo burburka, muddo kadib Siyaad Barre wuxuu bilaabay inuu cadaadiyo mucaaradka iyo kooxaha siyaasadeed, waxaana jiray xasilooni darro siyaasadeed, dagaalo beeleed iyo kacdoono ka dhan ah xukunkiisa. Sanadkii 1991, kadib markii mucaaradku uu xoogaystay xukunkii, Siyaad Barre waa la afgembiyay isagoo qaxooti u baxay. Siyaad Barre wuxuu ku geeriyooday Nairobi sanadkii 1995 isagoo ka baxay Soomaaliya kadib burburkii dowladdiisa. Markii laga hadlo saameynta uu ku reebay Siyaad Barre Soomaaliya, Siyaad Barre wuxuu saameyn ku leeyahay taariikhda Soomaaliya weliba laba dhinac. Markii laga hadlo dhinaca wanaagga, wuxuu sameeyay sida horumarka waxbarashada iyo isku dubbaridka dalka. Dhinaca xun markii la fiiriyo, sida caburinta siyaasadeed, dagaalada sokeeye iyo burburkii dowladdii dhexe. Nabadgelyo.